waxa ay soo martay madaxa howlgalada magaalada soo martay gobolka wax iyaga dhib badnaa iyaga welwel badama jirin macnaha nugeeda inaa ka wareysid shaqa dad u dirsatay welwelaa kugu jira malagaa soo dilay inaa la socotid waa adaa ku weeran marar qaar waa isheen weyn xataa anaa idin yaraaca leedahay oo nabada waa idin fiirsana ilaa hubkii laga kala dhigo hooshii laga soo dhaw mana siraysid hooshii soo dhacday ragii madax guud oo soo wacay hooshii say u dhacday inaad sheegtid hadana hebel aa galay yaa wax ku dhuftay hebel yaa ku xig intaas meeqa badaa dhacday intaas inta loo waxsmi tafaasiil dheeraad ah laga qor kadib ninkaas wixii macquul galka in idaacadan dulis loo tooro 2 November sanadii 2016 ayaa iyagoo baxsad ah la qabtay kadib dil ay u geysteen nabadoon Hilowle Xeefo Xuseen laakiin xilligaas waxa uu heliyay oo horjoogo u ahaa ilkaase oo afgarashadiisu ahayd daahir Fiidow iyo Kero ayaa la mariyay ciqaabtii ay mudnaayeen ee toogasho 7 January 2019 Agosto 5 2019 ayaa la geeyay fagaaraha cadaaladda iskool Buluusiya kadib qaraxin mataanaha oo dadku waxyeeloobeen oo uu geystay isaga iyo Boro 22 December 2018 laakiin gaariga hore ee qarxay hayna baro canshuur ismiidaamiyihii iyo jihiyihiisa wallaahi maanta kadib baysiba ilkaasan wuxuu soo watay yarkaad isku qarxin doono nanu an yarkan Cabdixakiin aan lagu soo daray 14 November sanadkan ayaa iyagana xukun laga soo saaray 4 eedeysana oo 3 kamid ah horjoogo u ahaa ilkaase nin la dhahayo ilkaase iyaga hore la dhihi jiray daayir waxaan ila jiray ilkaas wajile ina isku horkeentid muugi waxa laga yaabaa maxaa la jiray anaga inta aan ka dhamaano baasna leen dub inta bariiska leeyahay ma aha koodi inuu imaamo hadana aan la aqoonsanin yani kama ilkaaso wax oo ilkaas inuu yahay muujin kara ma jiraan waxaas dhan sheekayga ma ahan bal Maxamed Xaaji macalinka dhagarta hayskeen baro horta asalkii Xudayfa aan ku ah group fara badan oo aan la soo shaqeeyay markii la badbedelayna magacadan aska wada group walba lagu soo bedel magac cusub waay cadaaba la baxay rakaasaan la baxay Haashim oo magaciisa afgarashadu yahay Carab Maxamed Xaaji ayuu la dilay adeerkiisa aabihiisa ay shaqo wadaag ahaayeen marxuumka sareeyo guuto booliis Ismaaciil Axmed Cusmaan Markeelo dilkaas oo ka dhacay degmada Waabari 28 Oktoobar 2016 wuxuu fadhiyay maqaayad ku taalo isgooska Waabari isgooska shaqaalaha wuxuu fadhiyay meesha laga soo doorahay hadin ciidana markaadna oo seminaarka maadal sheegay Talyaani ma sarkaal waxa marka xaafadu soo galay xaafadiyaan kala soo dawgalnay markay taasan waa Faadumo Cornel oo magaceeda afgarashadu yahay Cusabo kagama faa'iideysan fursadeeda u adeegida dalka iyo kumaareynta nolosheeda la shaqeynta ururka haweenka iyo dawladda hoose laakiin shaqo kale oo ah dhiig daadin ay ku darsatay soo dhaw adagtahay iyo jilcanta iska dhaaf aniga qarax ma ku dhiibanaan hubkan iyo qaad iyo hay ma ku dhahay degmadaas waxaan ka rabaa wixii ka dhacayo xilliga xilfada ay qabtiin xilliga madaxdeedii imaanayso xilliga ay degmada soo galayaan xilliga ay ka tagayaan sida badan madaxa idii timaado inay ii soo sheegtid oo maxaan ku ilaa asaas oo shaqada ay ila wadadaan rabaan waxaas la ii soo sheeg bis aniga wax kale ay qaban Salim wuxuu nolosha u aqoonsaday ex marxuum Cabduqaadir Daahir Diiriye oo qayb ka ahaa dilkiisa January 2018 go'aanka heerka koowaad ee maxkamadda ciidamada kaliya kuma ekaan 4 xukun sano laakiin waxa jira maqanayaal ay maxkamaddu go'aan ka gaartay kadib macluumaad dhameystiran oo garsoorayaasha heleen Sharmaake Umar Ahmed Xuseen oo magaciisa afgarashadu yihiin ugaaska iyo ganay wuxuu ka soo jeedaa Hiiraan Baladweyne isagoo qayb ka ahaa dilal dhowr ah oo la geystay Maxamed Xaaji sida dil ay u geysteen Allah u naxariistay ku xigeenkii xeerlaaliyaha guud ee qaranka Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud Ahmed Faarax Iidle oo magaciisa afgarashadu yihiin Shuuriye iyo Madoobe Nuuno waxa uu ka soo jeedaa Galgaduud Ceelbuur waxa lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa fulinta dil ay ka mid yihiin Allah u naxariistay ex sareeyo guuto booliis Maxamuud Xaaji Cali Cabdiraxmaan Mustafa Cabdullaahi oo magaciisa afgarashadu yahay Faarax Mooryaanka deegaan ahaan waxa uu ka soo jeedaa Shabeellada Hoose Walaweyn waxa ay wada dileen isaga iyo horjoogihiisa marxuum ex laba alif la booliis Maxamed Umar Sheekh Cusmaan oo ay ku dileen gudaha masjidka Bandhawo isaga oo dhageysanaya tafsiirka Quraanka 24 Febraayo 2017
faarax mooryaanka waxa uu isku yahay dilaa iyo abaabulidda gawaarida qaraxyada loo adeegsado bal maxay uga dhigan tahay maleeshiyada dilka muslim ku jira guriga Alle ha inoo sharaxo horjooga ilka case marka hadda nimanka nin waxa laga aqbalaa markuu muslim yahay dhoorsay ahlu tawxiid u yahay hadii gamsay doo jara oo gala najaasa gasho waa laga soo bixina ay gala ka waran hadda ma lagu deysana ya ay inta masaajid gal hala dhaaf ma la saasay la mid tahay kacbada lagu dilo yani waa meel walba lagu arko iigiisa xalaal xoolihiisa xalaal maalkiisa xalaal wax walba xalaal waaye hala dhaafiyo Ramadaan Cabdiraxiin Mursal magaciisa afgarashadu yahay Saalax waxa uu ka soo jeedaa gobolka Gedo Baardheere waxa uu qayb ka ahaa dilka marxuumka sareeyo guuto xooga dalka Cabdullaahi Maxamed Sheekh Xasan Qurur iyo wiil uu ilaalo u ahaa oo ka tirsanaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxa ku heliyay dilkaasi horjoogihiisa Cabdinaasir Axmed Cabduqaadir Carabi waxa uu ka soo jeedaa gobolka Baybuur waxa uu ahaa ku-xigeenka Saalim isagoo qaadi jira haweenka qariyo hubka ay wax ku dilaan eedeysanayaasha maxkamadda xukuntay waa kan gaashaalan sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo uu aqriyay warfidiyaanada xukunka ay ka soo saareen 8 eedeysana iyo horjoogahooda ilka case sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in 9 eedeysane ay wada yihiin dambiilayaal gale dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay 1 dambiile shabaab maxamed xaaji axmed oo afgarashadiisu tahay ilka case 2 dambiile shabaab saalim siciid maxamed oo afgarashadiisu tahay salmaan 3 dambiile shabaab axmed maxamed haashim oo afgarashadiisu tahay carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegaysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah 4 dambiile shabaab sharmaaka cumar axmed xuseen oo afgarashadiisu tahay ugaaska iyo ganay 5 dambiile shabaab axmed faarax iidle oo afgarashadiisu ay tahay shuuriye iyo madoobe 6 dambiile shabaab cabdiraxmaan mustaf sheekh cabdulaahi oo afgarashadiisu ay tahay faarax mooryaanka 7 dambiile shabaab ramadaan cabdiraxiin mursal oo afgarashadiisu tahay saalax oo maqanayaal ah waxay maxkamaddu ku xukuntay ayagoo maqanayaal ah dil toogasho ah 8 dambiile shabaab cabdinaasir axmed cabduqaadir oo afgarashadiisu tahay carabey oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in 9 dambiile shabaab faadumo xuseen cali cadaawe oo magaceedu afgarashadu yihiin faadumo korneel iyo cosabo oo goobjoog ah waxay maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan raacfaan wabillahi tawfiiq Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho